waxa ay ahaayeen bulsho xoolo dhaqato ah beeraley iyo kalluumaysato ku noolaa bariga Afrika. Waxay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah oo ka maran gaajo, kacaakuf iyo hadimo kasta oo laga dhadhansan karo nolosha Afrikaanka nolosha Soomaalida ee xilligan. Waxa soo galay gumaysi, waxa uu kala qaybiyay dawlado iyo gobollo. Isnaac kastana waxa ay samaysteen dawlado ilaalo iyo isbedello tiro badan. Waa bilowga taxane cusub oo aan ugu magac darnay taariikhda dhabta ahayd ee Soomaaliya. Waa taxane aan isku dul istaagin doono taariikh aan wali boodhka laga jafin. Oona sheegin sida aragti fog oo aan la dhuuxin. Waxaan ka hadli doonaa dhexdana jibaaxi doonaa taariikhdii ka horreysay gumaysiga, imaadkii gumaysiga, halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, bilowga dawladnimada, tii kacaanka iyo burburkii dalka. gabaygiisii ayuu bilowday waxaana uu yidhi hinsir iyo hisiga soo dhiciya hirif dabayl baale hanqadhi iyo hilaac bililigli halalac roob baale xiin hawle iyo heega xuran hogol daruuraale maal horay ciir laga hanfuqo taariikhda ururkii gobonimo u dirirka Soomaaliyeed ee SYL oo ka koobnaa 13 dhalinyaro. maanta waxay nahay xor talada iyada gacantana ay noogu jirtaa waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad yaad leedihiin noolaan karna laakiin bisharad iimaanku inuu nagu soo noqdo weey in gobonimada dalkeenna iyo dadkeennu inagu weynaato weey iyadaa ka faa'iido roorda ogow. nolosha dadka Soomaaliyeed waqtigii hore waxay ahayd mid salka ku fadhida macno weyn leh. dadka dhulkooda ku kalsoonaayeen, maalkoodana ku kalsoonaayeen, magacooda ku kalsoonaayeen. Soomaalidii hore waxay ahayd dhaqan iyo xeer ay isku maamulaan. kii khalad gala ay ku qaadaan xeer dhaqameed, guurka, martisoorka, wada deganaanshaha, kala sarreynta dhaqanka. dhammaantood waxay ahaayeen xeeran aan laga gudbi karin. dabcan waxa aan u jeednaa waxa ay ahaayeen waxa loo yaqaano unwritten traditional constitutions, taasoo kala mid ahaayeen Afrikaankii kale ee ka jiray qarnigii 19aad iyo ka horba. dhulka Soomaaliyeed waxa weligiisba ahaa xarun dhexe oo maamusha ganacsiga qaybo badan oo dunida ka mid ahna. waxa intaas dheeraa waxa dhulka Soomaaliyeed ahaa mid wax soo saar leh xagga beeraha, xoolaha iyo kheyraadiyada kale ee dunideeda kale ka manfaacadsato. sida ay isku raaceen badi boqortooyooyinkii caalamka, sida boqortooyadii Faraacinta waqti iminka laga joogo ilaa iyo 3000 oo sano, kuwaas oo ganacsi la lahaa qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed sida Saylac iyo dhulka Uduga ee Puntland. nolosha dadka Soomaaliyeed xilligaas hore waxa ay ku tiirsanayd kow xoolo dhaqashada. waxa ay ahayd laf-dhabarta dhaqaale ee nolosha qofka Soomaaliga ah. dadkuna waxa ay dhaqan jireen ilaa eegan badi dadka Soomaaliyeed dhaqdaan geel, lo, ari iyo nooc kasta oo xoolaad oo tiro badan. 2 beeraleyda. dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan dhulka carrasanka ah waxa lagu beeri jiray noocyo badan oo dalagyo dheeraad ah. 3 kalluumaysiga. xeebta Soomaaliyeed waxa ay ahayd mid dadka Soomaaliyeed ay ka kalluumaystaan isla markaasna jiilba jiil gudbiyo. inkastoo dadka Soomaaliyeed iyo qaybo ka mid ah dalka Djibouti iyo Eritrea waxa ay ahayd boqortooyada ugu caansan ee guud ahaanba boqortooyooyinkii hore. waxa ay la lahayd xiriir jaal ah boqortooyadii Cusmaaniyiinta. waxa ay lahayd boqor, waxa ay lahayd ciidan awood badan iyo sidoo kale saameyn aan la dhayalsan karin oo ka jirtay bariga Afrika. boqortooyooyin kale ee saameynta lahaa ee dadka Soomaaliyeed lahaayeen waxa ka mid ahaa boqortooyadii Ajuuraan, boqortooyadii Galadii, boqortooyadii Hobyo iyo boqortooyadii Majeerteen iyo qaar kale oo badan. badi boqortooyooyinkani waxay ahaayeen kuwa dadka ku dhaqa sharciga Islaamka. sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo oo xooggan sida garnaqsiga, wadaagga xalinta aragtiyaha kala tagsan iyo dhowrista maqaamka Islaamka. halka diinta Islaamka ee suubanina ay ahayd tan isku geenaysay xuduntana u ah ummadan dadka Soomaaliyeed. inkastoo ay ahayd ummad xoolo dhaqato ah una badnayd reer miyi, haddana waxay ahaayeen dad horumar ka gaadhay dhinaca siyaasadda iyo dawlad dhiska. si hadda la is odhan karo habaar ayaa ku dhacay. guntii iyo gabagabadii muuqaalkana Soomaaliya waxay ahayd bulsho isku filan, xeerkeeda leh oo isku dan ah. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xalqadeena koobaad ee taxanaha runta taariikhda Soomaalida. maxay kula tahay adiga? haddii aanad weli nagu soo biirin, nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeena. hal muuqaalka like saar, siina share gar